labaatankii sano ee la soo dhaafay Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalka Islaamka kuwooda ay ugu adag tahay qofka inuu aado xajka isla markaana uu soo guto rugni ka mid ah tiirarka Islaamka waxaana arintaasi lagu sababeeyay qarashaadka lagu aadayay xajka oo ah lacag aad u fara badan waxaana xujeeda laga qaadayay lacag dhan $4,000 in ka badan halka dawladaha kale ee Islaamkana lacagahaasi lacaga ka yar laga qaado xujeeda مثال أهل جيبوتي أو كميدا دلالك إسلامك صوماليا درس لا وحا حجيدا لغا قادا لعag ka yar $1,500 lacagaha tirada badan waxa u sababa 20 sano in laga qaado xujayda shirkadaha kala ah Jubba Airways iyo Dala Airways oo 20 sano la soo dhaafay u xirnaa in xujayda kaligood ay qaadaan waxayna la heshiiyeen shirkado laga leeyahay Sacuudiga iyo waliba ganacsato calooshood u shaqaystayaal ah oo u dhashay Sacuudiga kuwaas oo u sahlayay in diyaarado kale aysan ka shaqeynin daabulista xujayda dawladihii soo maray Soomaaliya waxay dhamaantooda isku dayeen in wax laga bedelo qaabka Soomaaliya xujayda ay kaga soo xajinayaan laakiin milkiilayaasha diyaaradaha kala ah Jubba iyo Daalo ayaa waxay ku sameeyeen dawladahaasi dagaal xooggan taasna waxay keentay in ay diyaaradahan ay u xirnaato daabulista xujayda dawladda federaalka ee Soomaaliya ee madaxweynaha uu ka yahay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waxay sanadkan diyaaradaha qaadi jiray xujayda ee ku soo dartay diyaaradaha kala ah Ocean iyo sidoo kale Freedom laakiin waxa arintaasi ay isku dayeen milkiilayaasha diyaaradaha Jubba iyo Daalo inay hor istaagaan waxayna sameeyeen propaganda xoogan oo xagga meediyaha ah ayagoona adeegsanaya shakhsiyaad ay siiyeen lacago iyo sidoo kale dad aftahana ah oo ay siiyeen laaluush si loo hor istaago in diyaaradahan ay ku soo biiraan qaadista xujayda ugu dambeyn dawladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay in labada shirkadood ee kala ah Ocean iyo Freedom ay ka mid noqdaan sanadkan diyaaradaha daabulayo xujayda waxayna taas ay keentay in xujayda sanadkan ay ku soo xajiyaan lacag dhan $3,000 halka kolkii hore laga qaadi jiray lacag ka badan $4,000 taas oo keenaysay shirkadahan sida gaarka ah isbaarada u dhigtay xajka waxayna xujaydu ee la kulmayeen caqabada aad u fara badan diyaaradda Jubba Airways waxa iska leh xildhibaan Saciid Nuur Gariish wuxuuna inuu xildhibaan naqdo uu ku bixiyay lacag dhan $1 milyan si uu u difaacdo shirkadda Jubba Airways uu leeyahay isla markaana isbaarada ay ugu taal xajka waxaana inuu xildhibaan naqdo ay keentay arinta ku aadan isku dhac soo kala dhaxgalay asiga iyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo damcay in xajka iyo xujayda wax laga bedelo qaabka loo daabulayo shirkadda Dala Airways waxa laga leeyahay Somaliland waxaana iska leh ganacsade lagu magacaabo awlaad laakiin waxa koonfurta Soomaaliya wakiil ugu ah shakhsi lagu magacaabo Muniir Cabbaas oo ka mid ah shakhsiyaadka 20 sano ee la soo dhaafay isbaarada ay u taal xajka xildhibaan Saciid Nuur Gariish ayaa waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka ganacsatada ah ee ku liibaanay kuna aflaxay dhiigga shacabka isla markaana wuxuu sidoo kale uu ka mid yahay shakhsiyaadka 20 sano isbaarada u dhigtay xujayda Soomaaliyeed waxaase hadda muuqata ifafaalo ku aadan in sanadba sanadka ka dambeeya xujayda Soomaalida ay ku aadi doonaan lacagii hore lacaga ka yar taasna waxaa sahlaya in la kordhiyo shirkadaha diyaaradaha ee daabulaya xujayda haddaba la soco qaybo kale oo ka mid ah xujayda Soomaalida iyo qaabka ay u soo xajinayaan sanadkan oo guul u ah shacabka Soomaaliyeed